ما الله محاول هذا ربنا سلامتنا halkan waa istaal Madiina wiil dhalinyaro oo jaamacad soo dhaweeyay oo rabay in qoyskiisii u qalqaabaya aroos ayaa la dilay maalintii sagaalaad ayuu ku jiraa Finjeer waa cadaadarada ka socota ee Muqdisho ehelka wiilka dhalinyarada oo la dilay oo weli 9 biri Finjeer ku jira ayaa familkiisa dambe cadaalad in la soo qabto oo tiirka la keeno Muqdisho xaalad qoys ayaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allahu naxariisto marxuumka Cabdullaahi Daahir Abshir Xeel Jimcaale gacanka xaq darana disho wiilkeen cadaalad u rabnaa haday cadaalad jirto ma aragta Cabdullaahi Daahir cadaalad u baahan waa wiil 20 jir cadaalad u baahan jaamacad dhigto dalka Soomaaliya ka dhashay marka Cabdullaahi Daahir cadaalad u baahan in la siiyo saxaba sidoo saameeyay geerida walaalka sidoo saameeyay والله حالداس إلهي مركلنا مجهلي لكن سيحنا لو دي الويل كريم لا هدف رنجيرو كجرا سما لا هدف رنجيرو كجرا ويل حتى لما أسن عدالة أو ربنا ما أنت رجينا إن لا أسلك دولة عدالة إن يصيرنا وحي وقبضة سيد الغيرة كل أساس لو دلين عادل فيديكو سجال ما رنجيركو هاي ما أنت أربعين هدفتان ما أنت وحاو ما هو كلفة إن عدالة أو هلنا ربنا ما أنت هانا سوقيني وح عدالة إنه مصوبة دولة أنت أنكلت عن عقاب ممرسين كرنويل كان في رنجيرك سجال ما نكبضن وكجرا مركا عقاب هلا صار عاملنا إن ويلك إن قادان حتى الجديد مكي أو الجديد راجعون كل نفس ذائقة الموت waxaan halkan uga tacsiyeynaa wiilkayga aan habaryartu u ahay oo walaashay macaan oo isku aabbaanaha ii dhashay Cabdullaahi Daahir waxaan ku leeyahay habaryar macaan jannatul firdaws a'la ilaahay ha ku geeyo sakaraadka soo ilaahay kuugu fududeeyo su'aasha kuugu fududeeyo gacan ka xaq daran ayaa ku dishay marwab ilaahay waxaan kaaga rajeynayaa adduun iyo aakhiraba inaad cadaalad heshid wiil yar oo waxaad ahayd oo hami sare lahaa oo nolosha inuu hami sare ka gaaro jecel baad ahayd hadduu jaamacad dhameeye 22 jir buu ahaa hadduu rabo reer inuu dhisto ilaahay kuu naxariisto habar macaan waxaan leeyahay jannada inuu quralceen anaga geeridiis waxaan soo gaartay habeenkii markii oo adiga 9 sac markay ahayd 30 abriil aan la dilay 9 sac habeenimo jagboontiga oo saybiyaano lagu diray gacanka xaq daranaad disho waxaan leeyahay saad asagoo iskaga socdo saadkiis saxsan yahay wili soo degta gacmaha taage marka waxaan leeyahay habar macaan ilaahay cadaalad ha ku siiyaan leeyahay wallahi ma garanayna hadaan garan lahayn wayba noo dhacan lahayd maya waa rajeynayna waa adi wiil ilaa hadda wax xaqiiq ah ma hayno si saxna wax nooguma sheegin mana nala qancin in waxba saxayba nooma sheegin maadaama habeen bar eedo anagana 9 sac habeen ma noola soo sheegay qolada meesha shaqada ku lahayd jagboonta oo kaamirada waxaan noo keenay oo mar hore ah oo aan waxba laga fahmaynin cunugan cunug soo degtay istaag marka la dhahay oo istaagay oo soo degto gacmaha taagto aha because haduu istaagleen ama uu baxsan lahaa markii gaariga gadaal laga xabaday xabadana gadaal ay uga ooli lahayd asagana gadaal ay xabada uga dhici lahayd cunugan cunug soo degto gacmaha saa u taagay xabadana waxay kaga taala halkaas kimida risto dadkii dilayna bar lagu ma haayo askartana waxayna dheendar cadaad dishay xalaa qofkii si qaldan ku socdan in la dilo madaxweynaha amreedkeen anaga wiilkeen cadaalad ugu baahannahay askarta cadaalad ma siinayaan xataa waxay dheen wiilkaas qaldan dilkiis shaqo iyo shaqo ma ku liinigo sababtoo ah seedka oo ku socday seed saxan ma oo ahayn marka ku socdan u dilmeedeen kaamirada tusiyo marka dhaana kaamira aan jirin oo xataa gaarigeena oo macnaha taargada xataa aan laga fahmaynin tusiyeen sababtoo gaariga waxa lagu aqoonsaa taargadeena naqaana Soomaaliya taargadeena xataa ma arkin wiilkeen oo degtay ma arkin wiilkan xabada meesha ugu dhacdan qof banaanka soo baxlay waa sababtoo qofka baabuurka markii uu weeraro qaab kale ugu dhacay Soomaaliya CID marka teen maxaa la idin sheegay baarta CID waxay dhahan wiilka qaladkiisa lagu dilay anagana wax qalad ma kulaana camal garsoorka maxkamadda nafteen way noo diideen waxa soo dhan inaan tagno waxa soo dhan way noo diideen bo waxayna wiilkiina oo gadaran yahay ilaahay uu naxariisto cadaalad ilaahay ka sugeynaa kan dawladda cadaalad man raba inay siiyaan ilaahay cadaalad ha siiyo